يا حافظ القرآن هاكم فرحة ولقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. horta dhammaanteen niyadeena dar ilaahay aan gelino oo ogsoono ilmahaagu hadduu quraanka barto uu ilaahay ilmahaaga kuu sakhiro inuu quraanka barto intaad ifka joogtidna indha qabowsi buu kuu noqoni markaad dhimatana uu kuu soo ducayni maalinka qiyaamadana uu kuu shafaaco qaadi ilaahuna waafaji haddaba iskuulku saamuu yahay kallaa wallah waxaa laga yaabaa wiilkaad leedahay jaamacad buu iga soo baxay inuu waxa weeyaan adiga caqabad kuu noqdo noloshaada laga yaabaa inaad ka qaado dhiikar iyo macaan ood sababta u geeriyoortaa dhici karta iyo walbahaarkiisa walaalayaal tarbiyada iyo akhlaaqada iyo xaqa waalidka ta qof kastaba xaqiisa siisay wallahi waa diinta walaalayaal midna ogow arsaaqada ilaahay iskuulun kuma jirta sheekhoy imise qof baan ba iyo ta aan qori karin oo maanta doolarka meel ay dhigaan la oo geeloodii arrada uu ku batay imise laleeyahay waa jaamici oo PhD haysto master haysto degree haysto diploma haysta maantana qeyrkii shahaadaya oo maanta aan waxba aan awoodi karin horta rizqa ilaahay baa bixiya waxa la yiraahdaa qofka quraanka haduu xifdiyo dhowr arimood bay culimadu sheegeen waxa kamid ah adduunyada intuu joogo waxay yiraahdeen qudima al-hafiz li kitabillah hayyan wa mayyita qofka xambaara kitaabka ilaahay waa la horeysiiyay isagoo ifka jooga iyo isagoo aakhira joogaba isagoo nool iyo isagoo dhintayba ninka quraanka xifdisan isaga lambar 1 oo ugu sareeya wala mu ahada dadka ugu liita mu ahada haduu kitaabka ilaahay qabsado taasoo cid kasta kaga sareynaya qeyrkii kaga sareynaya sumcadiya magac ku yeelanaya wuxuu Umar radiyallahu anhu لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين وحولي وحن مقري نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة إلهي كتاب كم بذكر وقاضى وكعزية ومقع كسية ضدنا وكدلية هذا خلاصة دي سوحة ويماليات هي النحر كيسو والكتاب كإلهي هدي الله قبصده والله شرفي عزي مقع بالقاري كتاب كإلهي هدنا ضيعننا وكتاب كإلهي فرها لك قادنا وان ضيع منا كتاب كإلهي ما ضيع